madaxweyne qorqor ayaa fadhiga uga kacay siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee beesha degta Xeraale kuwaas oo shir saacada qaatay kula lahaa aqalka madaxtooyada Galmudug ee Dhuusamareeb. beesha sure ee degta qaybo ka mid ah waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa iska diiday ka mid noqoshada gobolka cusub ee Galwaaq oo dhawaan golaha fulinta Galmudug ay ansixiyeen. shirkan ayaa maanta lagu falaqeeyay laba qodob oo kala ahaa in Galmudug ay si rasmi uga noqoto gobolkaas iyo inay caddeyso in magaalooyinka Xeraale iyo Huurshe aysan ka mid ahayn gobolkaasi. hogaamiyaha Galmudug ayaa iska diiday dalabkii isagoo ku adkaystay in gobolkaasi uu yahay mid rasmi ah. taas beddelkeed waxa uu ka codsaday duqeydii dhaqanka iyo siyaasiyiintii inay guddi iska soo saaraan iyagana uu kala xaajoon doono arrinta gobolka. dhinacyadii shirka ka qayb galay ayaa sheegay in beeshu ay shir iskugu laaban doonto magaalada Xeraale halkaasna ay kaga dhawaaqi doonto mowqifkeeda. waxay u badan tahay in Galmudug oo dhan aan iska diidno oo aanan aqbalin wax walba ay wado, ayuu yiri mid ka mid ah ka qaybgalayaashii shirki ka dhacay maanta Dhuusamareeb. shirkan waxaa ka qayb galay xildhibaano heer federaal, kuwa heer dowlad goboleed iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Axmed Qorqor kuwaas oo diidan mowqifka Galmudug ee gobolkan. sababaha ugu waaweyn ee dooda gobolkan iyo diidmada mid ka mid ah beelaha dega gobolka ayaa ah in aanooyinka qabiilka iyo dhacdooyinka ugu dambeeyay ee la xiriiray dagaalada qabaa'ilku ay sababeen nacayb xooggan oo ku kala dhex beerma dadka wada dega qaybo ka mid ah waqooyiga gobolka Galgaduud.